habeen wanaagsan qodobada wararka Soomaali News idinkugu soo gudbi doona waxa ugu waaweyn daawadayaal Ra'iisul Wasaare Roble oo laamaha amniga kala duwan iyo ciidanka AMISOM wasiirka ka tirsan dowladda Soomaaliya kulan degdeg ah la yeeshay waxyaabaha ay ka wada hadlanayaan halkan ku tabi doona doorasho qorsheedu ah in ay galabta ka bilaabato magaalada Beledweyne oo fashilantay kadib xaalada amni darro oo weyn oo soo wajahay Sanbalolsho oo loo hanjabay wararkii ugu dambeeyay Beledweyne ayaan warkeedu kugu soo gudbi doona dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Qatar oo kala socday heshiisyo cusub ee dhanka waxbarashada Soomaaliya ku saabsan iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka Ukraine oo xoogaystay qayladaan ka timid madaxweynaha dalkaasi qodobada iyo qodobo kale ayaan wararka Soomaali News ee habeen ku tabi doona ee u diyaar garooba markale kulan wacan oo wanaagsan waa 27 bisha 3 2022 habeenimo axadii baxaysa isniin ayaa soo galayso fadlan nagala qayb qaadada wade faafitaanka muuqaalkan adigoo baraha kale ee bulshada ku sii share gareynayo waxaad ku soo dhawaataan qodobada aad maqasheen oo aynu gudagalna faahfaahintooda haddii aynu ku bilowno ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa hoggaanka ciidamada fareyn ee baaritaan rasmi ah ay ku sameeyaan weeraradii ka kala dhacay Muqdisho iyo Beledweyne toddobaadkii tagay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la yeeshay madaxda ugu sarreysa hay'adaha amniga dalka iyo howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Soomaaliya qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka koobaad ee xukuumadda ayaa lagu yeeray Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu kulan la yeeshay madaxda ugu sarreysa hay'adaha amniga dalka iyo howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM isagoo faray in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo weeraradii Al-Shabaab ee ku qaadeen qaybo ka mid ah magaalooyinka Beledweyne iyo Muqdisho taas oo qalqal weyn gelisay dalka si gaar ah doorashooyinka kulanka Ra'iisul Wasaare Roble la yeeshay hoggaanka ciidamada ayaa waxa ku soo beegmaya iyadoo 23 bishii March Muqdisho iyo Beledweyne ay ka dhaceen weerar mas'uuliyiintooda ay sheegteen Al-Shabaab weerarada ka dhacay Muqdisho iyo Beledweyne waxa ku naf waayay in ka badan 50 ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 100 ruux shakhsiyaadka geeriyooday waxa ka mid ah hadalaha u naxariistay xildhibaanad Aamina Maxamed Cabdi oo qayb ka ahayd baarlamaankii 11 mar kalena u sharaxneed kursiga 135 oo xogaha ugu badan tilmaamayaan inay qayb ka ahayd qaarijinteeda inaysan mar dambe helin madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 48 saac kadib la kulmay hoggaanka ciidamada isagoo faray in baaritaan lagu sameeyo weeraradii ka dhacay halkaasi dhanka kale beesha caalamka iyo mas'uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa cambaaraya weeraradaasi iyagoo dowladda u soo jeediyay inay ammaanka sugu waayeen xilligan oo dalka doorasho ku jiro doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu waday in la soo gabagabeeyo 15 bishii March ayna haatan ku guda jirno balse waxa yimid dib u dhac mar kale doorashada saameeyay xildhibaanada dooran ee baarlamaanka 11 ee dalka ayaa u dhigmo 90% kulanka Ra'iisul Wasaare Roble maanta la qaatay laamaha amniga ciidamada ka socda nabad ilaalinta Midowga Afrika AMISOM waxa ka maqnaa duqa magaalada Muqdisho ku xigeenkiisa amniga taliyaasha ciidamada lugta taliyaasha ciidamada ka socda maxkamadda ciidamada qalabka sida ciidanka badda waxaana kulankaasi maanta uu ka dhacay xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble ay ka maqnaayeen xubnihii shalay xaadira kulankii madaxweyne Farmaajo shir gudoominayay waxa qayb ka ahaa oo maanta mar kale ka soo qayb gala kulankan taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odawa taliyaha ciidanka booliska Xijaar taliyaha gobolka Banaadir ee booliska Farxaan Qaroole iyo saraakiil kale oo shalay isla kulanka Farmaajo ka qayb galay kulanka Ra'iisul Wasaare Roble uu gudoomiye maanta iyo kii shalay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxay ku kala duunaa inay xaadir ahaayeen maanta wasiirka amniga dowladda Soomaaliya xukuumadda Ra'iisul Wasaare Roble iyo ciidamada ka socda nabad ilaalinta Midowga Afrika AMISOM markana magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa qorshe u ahaa in galabta xilli dambe ay ka bilaabato doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si gaar ah kursiga hoob 58 oo ilaa 7 musharax ay ku tartamayeen shahaadada musharaxnimo oo musharaxiintaasi xalay la gudoonsiiyay ayaa doorashada waxa qorshe u ahaa in ay bilaabato iyadoo ilaa caawa halkaas ay ka socon lahayd balse xaalada amni darro ayaa suurtagali waayay sida wararka ay sheegayaan taliyihii hore ee hay'adda NISA Cabdullaahi Sanbalolsho ayaa ka mid ah dadka ku tartamaya kuraastaasi doorashadan waxa ku loolamayay ilaa 7 musharax oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Cabdullaahi Cali Cusuble taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolsho guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka Hirshabelle ayaa shaaciyay doorashada kursiga hoob 58 oo la filayay in halkaasi ka dhacdo ay ku timid xaalado farsamo balse wararka hoose ayaa sheegaya in xaalada amni darro dartood loo qaban waayo maalinta Isniinta ee bariya ayaa loo balansan yahay qabsoomida kursiga doorashadiisa
musharaxiin ku tartamaya kuraastan waxay kala yihiin Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe taliyihii hore hay'adda NISA, Injineer Yunis Maxamed Nuur, Cabdullaahi Cali Cusuble madaxweynihii hore maamulka Hirshabelle, Cabdulqaadir Xuseen Olow, Maxamed Afdhoob Makaraan, Cabdullaahi Maxamed Xuseen iyo Ubax Cali Sheegow. musharaxiinta oo dhammaantood shahaadada musharaxnimo gudoomay. magaalada Beledweyne qaraxyadii mataanaha ay ka dhacay toddobaadkii hore ee soo dhaafay kadib waxa xaaladda amni ahayd mid aad faraha uga sii baxayso. markaana dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Qatar ayaa heshiisyo cusub ee dhanka waxbarashada kala saxiixday. markaana wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa ka qayb galay kulamo shirka madasha Dooxa, waxaana heshiis is-afgarada oo lagu xoojinayo iskaashiga dhanka waxbarashada dowladaha Soomaaliya Qatar lala saxiixday hay'adda Qatar Fund. heshiiskan is-afgaradka ayaa ah mid lagu taageerayo waxbarashada ubadka Soomaaliyeed kuwaas oo fursad aan u helin inay aadaan dugsiyada, iyadoo sidoo kale kor loogu qaadayo tayada waxbarashada dalka, la dagaalanka heerka jahliga bulshada Soomaaliyeed. waxbarashada ubadka Soomaaliyeed waa mudnaanta koowaad ee dowladnimadeena. heshiiskan is-afgaradka waa mid aan ku dardargelinayno dadaalada aan ku bixinayna inaan ardada Soomaaliyeed gaarsiino waxbarasho tayo leh, sidoo kale kaga fogeyna jiilal badan oo gaaray xilligii waxbarashada ay seegeen dugsiyada, ayuu yiri wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada. munaasabada lagu saxeexay heshiiskan is-afgaradka waxaa sidoo kale ka qayb galay danjiraha dowladda Soomaaliya u jooga dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali Taano, la taliyaha wasaaradda waxbarashada Siciid Jaamac Guuleed, mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sanadyadii la soo dhaafay dadaal buuxa gelisay kor u qaadida tayada waxbarashada dalka, iyadoo kor loo qaaday miisaaniyadda waxbarashada, lana diyaariyay manhaj waxbarasho oo ka kooban dugsiyada hoose, dhexe, sare. sidoo kale waxbarashada lacag la'aan ah ayaa loo fidiyay kumanaan da'yar arday Soomaaliyeed. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Ukraine ayaa dalalka reer galbeedka in ay ka dalbaday in dalkiisa ka caawiyaan diyaarado, taangiyaal iyo hubka difaaca gantaalada tirada dheer. madaxweynaha Ukraine ayaa sheegay in diyaaradaha Ruushka aan lagu soo ridi karin qoryaha darooriga u dhaco. qaar ka mid ah madaxda dalalka reer galbeedka ayaa xaqiijinay dalalkooda ay diyaar u yihiin inay dalkaasi ka caawiyaan hubka tirada dheer si ay isaga caawiyaan duulaanka dalka Ruushka ku soo qaaday. dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday hore inay kordhinayso caawimaadda military oo ay siinayso Ukraine, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi. kadib markii Poland uu kula kulmay madaxweynaha dalka Joe Biden, ma jiro wadan aan ka helnay caawimaadaha badan oo na siiyo wadanka Mareykanka, waa midna muhiim noo ah, ayuu yiri madaxweynaha dalkaasi Ukraine. dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhaxeeya ayaa marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya, isagoo dunida dhammaan saameyn togan ku yeeshay. inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa khiyaaray tabinta wararka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News. mid lamid inta kulmi doona nabadgelyo. fadlan muuqaalkan baahitaankiisa nagala qayb qaado idigoo baraha kale ee bulshada iyo saaxiibadaada u sii share garanayo si aad u hesho xog iyo macluumaad badan oo ka qarsoon boggeena follow garaysa YouTube-keena Somali News booqo. warka mid lamid inta kulmi doona nabadgelyo.